madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada Kismaayo si weyn loogu soo dhaweeyay shacab iyo maamulkii halkaa joogaba Axmed Maxamed Islaan oo si weyn ugu soo dhaweeyay waa maxay ujeedada waxaan ka hadlayaa maanta waa qodobkaas runtii sida la socotaan dalkan wuxuu u jeestay doorasho qof iyo cod ah waad aragteen magaalooyin aad u fara badan in kaararkii doorashooyinka iyo kaararkii national ID-ga laga wada qaatay mar haddii uu Axmed Maxamed Islaan oo runtii waxa waaye caburin iyo runtii caqabado fara badan ee dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeed oo runtii waxa waaye muddo halka kula xayirnaa uu go'aan ku gaaray in uu ka laabto waxyaabihii hore dawladda waxay go'aan ku gaartay sida wararkan soo gaaray in ay la heshiiyaan in asagana lagu soo dabaalo mawjadaha socda ee doorashada qof iyo codka ah deegaanadana laga hirgeliyo sida la socotaan in doorashooyinkii magaalada Muqdisho iyo gobolada qaarkood inta badan ka bilaaban lahaa October 3keedii in dib loo dhigay November 3keedii sababtana ay tahay in waxa way magaalada Kismaayo laga gaarsiiyo bil gudaheeda doorashooyinkii qof iyo codka iyo kaararkii shacabka iyo runtii sida loogu qayban lahaa marka holahaas oo dhan ayaa wada socda mar hadduu ogolaado waxa way uu runtii waxa way ku calaalay mar hadduu ogolaado oo cawday rag badan oo runtii waxa way eheladiisa ah runtii ka tirsan dawladda Kenya iyo Ethiopia maadaama uu runtii waxa way arrimahaas kala hadlay waxa way go'aan waxa lagu gaaray halkii lagu qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah magaalada Garbaharey gobolka Gedo in runtii waxa way maadaama uu wax ogolaaday in Kismaayo halkeedii hawshay ka sii socoto halkaasna asaga uu runtii waxa way mataqaana hawshay wax ka daadiyo doorashada hadduu ku guuleystana waxa uu soo laabto oo December maamul goboleedyada dhici doonta tan deegaankan ay dhacdo November 3keeda marka waa howl isku wada afkartay waxa hadda ka hadalna malaha warqadda ay soo saaraan waa sugan oo communique-ga ah wax kale oo ka hor dhacay ma jiraan laakiin ujeedada waxay tahay in doorashooyinka laga hirgelin doono ee deegaanka November 3keeda waa intaas muhiimadda Axmedna waa ogolaaday in dhaqaalaha loo furo waxa badan waa uu codsaday waxa kamid ah meeshii wasaarad badan ka jirta in dhaqaalaha loo furo in waxa way mataqaana howlihii dawladda federaalka halka ay ka waday sidoo ay u sii socdaan waxa kala waa laga heshiin karaa qaladaad badan halka ka dhacay in waxa way raaska boono ciidamo waxa way runtii waxa way dawladda federaalka ee calanka Soomaaliya garabka ugu dhagay oo ku weeraray waxa Garbaharey ka dhacay howlahaas oo dhan waxa way iyadoo lala socdo ayaa dib loo dhigay laakiin waxa way waxa ka muhiimsan in dalka uu heshiiyo nimankaas sababta bixinta la baxayna waa aragtay garabkooda inay kala jabeen garabkii waxa way ogolaaday in la heshiiyana in ay waxa way iyagana ay ka qayb galeen qorshihii doorashada qof iyo codka ahaa ninka la yiraahdo Puntland runtii waxa way Saciid Cabdullaah Hadanana waaba markii hore ninkii waxa way nidaamkan iyo runtii qorshaha dawladnimada waxa way diidana oo dhaywan asaga isaga baxay marka isagana caalamka ayaa la horgeynaya la leeyahay waa kaas ninka ayaa Soomaaliya waxa way far la soo taagay asagana ujeedadiisa waxay tahay meesha Imaaraad baa ku haya maana waa nin runtii waxa way dalka u tuuro lahaa laakiin waxa way fargelinta Imaaraadka iyo runtii shilimaadka halka ku siiyaan ayuu waxa way kaga mashquulay laakiin asagana bal arkayna hadduu hoos nagasta ay taaganta hadduu ogolaado qorshaha dawladda iyo nidaamka inuu waxa way asla dalkiisa yaaba deegaanka inuu ka hirgeliyo deegaanka waa la soo dhaweynaya